kulanti wacan dhageystayaal waa haween axada oo isniin soo galayso saacadda Afrikada Bari waa 9kii habeenimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawiya caalamka waxaa kamid ah taliyihii booliska ee saldhigga degmada Afgooye oo lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho Kenya oo shacabkeeda ku soo rogtay xayiraado cusub oo la xiriira COVID-19 waxaad kaloo maqli doontaan fresh ma waxaan dareemayna hadda ma jirto qof caadi aan ahay laakiin de virus baa jirkay ku jiro coronavirus laakiin haddana alxamdulillah rabbil caalamiin waa mid kamid ah Soomaalida laga helay xanuunka corona iyo dabcan ciyaarihii qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamkii Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawiya caalamka balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ee BBC-da iyo Mawlid Xaaji Cabdi oo stuudiyaheena London fadhiya mahadsanid Bushra Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa daboolka ka qaaday in uu weydiisan doono baarlamaanka in la kordhiyo xaaladda degdega ah wuxuu doonayaa in lagu daro 2 toddobaad oo kale ilaa iyo 11 Abriil ah Mr Sánchez ayaa sidoo kale adkeeyay xanibaadaha ay ka mid yihiin ogolaanshaha dadka inay guryaha ka baxaan iyo markaas inuu doonayo in dawladdu ay la wareegto guryaha dadka da'da ah goorsi horeysay Spain waxay ku dhawaaqday tiradii ugu badneed ee bukaanka u geeriyooday fayraska corona taasi oo gaaraysa 394 qof Afrika haddayna eegno ugu yaraan 2 baadiri ayaa lagu xiray dalka Uganda kadib markii isu imaansho dadweyne ay sameeyeen iyadoo dalkaasina uu mamnuuc ka yahay kulamada diimeed iyo kuwa kale xilligan lagu jiro fayraska corona baadiri ku sugan kiniisadda Katoliga ku taala magaalada Kampala ayaa sheegay in uu khudbad wacdi diinaya la duubayay koox soo saarayaal laakiin goobjoogayaal ayaa sheegay in dad ay ku sugnaayeen goobta dalkaasi sabtidii ayaa laga xaqiijiyay kiiskii koowaad ee fayraska corona shiixnadii ugu horeysay ee qalab caafimaad ah oo Afrika ugu deeqay milyaneerka Shiinayska ee dalkaasi Shiinaha u dhashay ayaa lagu soo waramay inay gaartay dalkaasi Ethiopia taasi oo loogu talagalay in wax lagaga qabto faafitaanka fayraska COVID-19 Jack Ma oo ah la aasaasay shirkadda online wax ku iibisa Alibaba ayaa malaayiin agab ah oo isugu jirta cafuufka sanka iyo wajiga lagu xirto iyo dharka gaashaanka oo ay adeegsadaan hawlwadanada caafimaadka wuxuu u diray Afrika halkaasi oo haatan laga xaqiijiyay inay ka jiraan 1,000 kiis oo fayraska Jarmalku isaguna waxa uu mamnuucay dhammaan isu imaanshiyaha dadka wax ka badan 2 qof meel ka baxsan shaqada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ayaa sheegtay in talabadani ay dhaqan gal ahaan doonto 2 toddobaad ugu yaraan isla markaasna ay muhiim u tahay xakamaynta faafitaanka fayraska halka warkaasi aad kala socotaan waa BBC dalka Mareykanka haddii aynu eegno duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa daboolka ka qaaday in ku dhawaad 8,000 oo qof oo ku sugan magaalada ay haatan qabaan fayraska corona taasi oo ah 3 meelood oo meel dadka kiisaska Mareykanka uu ku hayo cudurkani Mr de Blasio ayaa ku sifeeyay arrintan ay tahay xaaladii ugu xumeed ee gudaha dalkaasi taniyo markii ay dhacday arrintii la magac baxday marugadii weyneed 1930kii dalka Hindiya waxaa maanta uu dhamaystay maalin dhan oo bandow ah oo lagu doonayay in dadka lagu xakameeyo fayraska corona faafitaankiisa lagu horjoogsado iyadoo si rasmi ah xanibaadu ay u saarnayd magaalooyin waaweyn iyo degmooyin dalka ka mid ah waxaana la sheegay in bandowgaasi uu jiri doono ilaa iyo dhamaadka bishan dukaamada iyo waliba goobaha ganacsiga iyo gaadiidka ayaa xirnaa iyadoo 100 milyan oo qof ay ku nagaadeen guryahooda waxaana la sheegay dadkaasi inay si mutadawacnimo u fulinayeen bandowga oo soconaya waa berigii ilaa iyo habeenkii ugu dambeyntii Bashar al-Assad madaxweynaha Suuriya ayaa soo saaray cafis maxaabiis waxa lagu tilmaamay in uu daboolayo dhammaan dambiyadii la galay ka hor maanta oo axada laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo laga saaray oo ilaa hadda aan cadayn iyadoo markaana ay jirto in maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda ay ku jiraan xabsiyo fara badan oo si sharci darro loo xiray 9 sano ee dagaalka dalkaasi uu socday qomnaan ka mid ah dadka ayaa ku dhintay xabsiyada Mr Assad dadka u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa doonaya in la sii daayo maxaabiistaasi iyagoo sheegay in faafitaanka cudurka
koroonaha uu markaasi gelin karo halis dadkaasi noloshooda si rasmiya looma sheegin kiisaska ka jira dalkaasi Syria laakiin waxaa la sheegayaa in dawladdu ay daboolka saarayso faafitaanka cudurkaasi iyo dadka uu waxyeeleeyay mas'uuliyiinta ayaa hadda wax xayiraad ku soo rogay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo weliba soo gelitaanka dadkaasi oo waddanka Suuriya soo geli lahaa warkii dunida ayaa intaasi ku eegaan dib idin kugu celiya Bashir Nuur iyo weliba barnaamijka qaybihiisa kale mawlid aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilownay wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax wadada dhinaceeda la dhigay uu qabsaday gaari booliisku lahaa halkaas oo ay ku dhinteen taliyihii saldhigga booliiska ee degmada Afgooye Dhame Cabdiqaadir Ismaan Nuunow iyo 3 askari sidoo kale waxaa dhaawacmay askar kale sida ay sheegeen ilo ku dhow booliiska qaraxa lagu dilay taliyaha iyo askartiisa ayaa ka dhacay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan agagaarka Lefole waxaana qaraxa mas'uuliyadiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab waa hagaag haatana wararka kale ee markaasi kamidka ah idaacadeena fayraska corona ayaa dunida oo dhan farabaan ku haya waxaana sii badanaya dadka cudurka uu soo ridanayo iyo dadka u dhimanaya intaba dalka Kenya dawladda ayaa ku dhawaaqday in kiisas cusub oo gaaraya 8 kiis ay diiwaan gelisay dalka Spain waxa lagu soo waramayaa in maanta oo kaliya ay 100 qof ku dhinteen haddaba wararkii ugu dambeeyay ee caabuqa COVID-19 waxa inoo haya Mawlid oo markaasi stuudiyaheena London fadhiya Bushra waad mahadsantahay ilaa hadda wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya waxay sheegayaan goordhaweyto ra'iisul wasaaraha dalkan UK Boris Johnson ayaa shirjaraad ku qabtay xafiiska Downing Street ee magaalada London waxaana uu shaaca ka qaaday in tirada dhimashada fayraska ay imika gaartay dalkan UK oo kaliya 280 iyo qof waxaana markaas jirta in 48 qof laga helay fayraska tan iyo shalay waxa kale oo jirta in tiradii shalay si guud marka loo fiirsho dadka uu hayay fayraska ay dhamayd 5683 laakiin waxa la sheegay in imika ay ku korortay 665 qof xagga Talyaaniga hadaynu fiirino Bushra waxa jirta in dawladda Talyaaniga imika ay soo saartay war ay ku sheegayso in dad aad u far badan uu dilooday caabuqan iyadoo markaa la soo sheegayo in madaxweynaha dalkaas Talyaaniga uu ku baaqayo uguna baaqayo Europe in arintani ay wax ka qabtaan waxaana uu sheegay in markaasi loo baahan yahay in dadka gacan la siiyo saacadii ugu dambeeyay dad dhowr boqol qof ayaa Talyaaniga la sheegay in ay ku geeriyoodeen fayraskan u dhinteen dalka Spain sidoo kale isna waxa la sheegay 394 qof in ay ku dhinteen 24 saac la soo dhaafay fayraska si guud markaynu u fiirino Bushra guud ahaan Europe ayaa imika waxa ay tahay meesha ugu daran fayrasku uu sida weyn u halakeeyay waxaana ugu daran dalka Talyaaniga iyadoo aynu maqlayno wararkii ugu dambeeyay mas'uuliyiinta Talyaaniga ay soo bixinayaan in Talyaanigu imika u leeyahay u caalwaayay arinta ku aadan wax ka qabashada arintaasi isagoo qayrdaan u dirsaday dalalka caalam gaar ahaan midowga Europe oo kale waxa jirta in Faransiiska xaqiisa aad iyo aad ay ka socoto xanibaad adag isla Talyaaniga hadaynu eegno madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin wuxuu diray koox dhaqaatiir iyo waliba qalab caafimaadka loogu talagalay Kuuba ayaa sidoo kale Talyaaniga u dirtay dhaqaatiir Shiinaha ayaa hore halkaas dhaqaatiir ugu diray marka waxaasi waxay muujinayaan in xaaladda waddanka Talyaaniga ay tahay mid aad u weyn Bushra waan gartay Mawlidow sidaad sheegtay dalalka Europe ayaa hadda meelaha isha lagu hayo goordhaweyd waxa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka UK muxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu marka laga soo tago arinta ku aadan dadkan dhintay wuxuu sheegay in ay si weyn hadda kadib ula tacaali doonaan dadka ku xadgudba sidoo uu sheegay arrimaha xakamaynta wuxuuna sheegay in tallaabo adag la qaadi doono waxaana laga yaabaa markaasi in xayiraado ay soo baxaan iyadoo lagu dhaliilayo dalkan UK in aanu si weyn u wajihin dhibaatada imika socota marka waxa laga yaabaa in imika laga baaraandegayo tallaabooyinka la qaadi lahaa iyadoo markaana ay dhici karto in la soo saaro amaro dadka ku xadgudba xanibaadaha marka dhibaato ay kala kulmi karaan waan gartay dhanka Afrika wadamo badan ayaa xayiraado soo rogaya taas maxaan ka ognahay
waa sidaa sheegtay waxaa ugu dambeeyey dalka Rwanda gebi ahaanba Rwanda xitaa waxay mamnuucday dalka gudihiis in la iskaga sodcaalo Uganda wayna ka warhaynay waxaa la diiday sidoo kale dadku inay sodcaalaan iyadoo markaana xanibaaday adag la soo saaray dalka Kenya hay'adda Lanqeyrta Cas ee Kenya waxay sheegtay in 8 qof oo 3 ka mid ah Kenya u dhasheen 5 kalena ay ajnabi yihiin ay markaasi laga helay fayraska taasi oo 15 ka dhigaysa dadka Kenya ee haatan qaba fayraska wadamo badan sida Ethiopia oo kale ayaa iyaduna laga soo sheegay inuu kordhay Nigeria Ghana ayaa laga soo waramaya sidoo kale iyadoo xalay la sheegay in qofkii ugu horeeyay uu Ghana ku dhintay marka si guud Afrika markaad fiiriso ilaa iyo hadda 114 qof ayaa laga xaqiijiyay laakiin WHO waxay sheegaysaa in xaaladdu inta ka sii badan karto waxaana halis ah in xaaladani ay sii kororto Bushra waan gartay Mawlidow dad badan oo caan ah ayaa saacadihii ugu dambeeyay la sheegay inuu ku dhacay fayraska bal arintan inooga waran waa sidaa sheegtay goor dhaweyta markaan idaacadda soo galaynay warbaahinta wadanka Jarmalka gaar ahaan telefishinka leeyahay Deutsche Welle goor dhaweyta wuxuu tabiyay in ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel la geliyay karantiil waxa la yiri nin dhakhtar ah oo iyada siinaya talaal ayaa markii uu talaalkii ku dhameeyay ra'iisul wasaaraha kadib waxa la ogaaday inuu qabo fayraska marka wax lama oga ayada ilaa hadda laguma sameyn baaritaan oo lama xaqiijin laakiin waxa la sheegay bacdama ninkaas ay la kulantay uuna talaal siiyay in ay marka dhici karto inay qabtaba fayraski marka ayada qudeedii ay ra'iisul wasaaraha hadda waxa la geliyay karantiil waa war hadda soo dhacay oo intii idaacadda ku jirnaya xagga hadaynu fiirino Mareykanka senator ka tirsan aqalka sanadka waddanka Mareykanka oo la yiraahdo Rand Paul kana tirsan xisbiga jamhuuriga talada waddanka haya ayaa isaguna waxa la sheegay in uu ku dhacay fayrasku goor dhaweyta bartiis Twitterka ayuu soo dhigay hadal uu ku leeyahay waan caafimaad qabaa ilaa iyo hadda xaaladdu way degan tahay karantiin ayaan ku jiraa laakiin waxa la xaqiijiyay inaan qabo fayraska goor dhaweyto dhowr saacadood ka horna waxa soo baxday in gabadha Soomaaliga la yiraahdo Sabrina Dawre oo qabo jilaaga Hollywoodka Idris Elba gabadhaasi laga helay fayraska qudeeda waxaa jirtay in Idris Elba toddobaadkii hore Bushra laga helay fayraska Sabrina marka way ag joogtay isagoo television isagoo marka social media soo galay ama baraha bulshada xaqiijinayna inuu fiican yahay laakiin fayraska uu qabo marka iyadoo way ag fadhida marka waxa wareysi la yeelatay gabadha wariyaha caanka la yiraahdo Oprah oo bilowday television ay ka sideynayso Apple TV Plus barnaamijkeedii ay ku wareysatay Sabrina Dawre iyo Idris Elba waxayna ay sheegtay Sabrina markii la weydiiyay in Idris oo qaba xanuunka ay ag joogtay waxa ku kalifay ayaa waxay sheegtay in aysan doonayn inay ka agtagto ninkeeda isla markaasna ay doonaysay inay dareensiiso ama ay tusto waxa ay ku tilmaamtay dabciga xaasinimo oo ah in ninkeeda ay daryeesho way sii hadashay waxay sheegtay in dhabahaantii waxay tiri maanta ayaan ogaaday inaan qabo fayraska hore ma aan ogeyn waxay tiri go'aan waan samayn lahaa aan nafteyda ku galiyay tiri qol gaar ah oo aan kaga fogaado Idris laakiin waxa qaatay go'aan ah inaan la joogo waliba xitaa jirkiisa aan taabto u dhawaado ayay tiri waxay sheegtay in caafimaadkeedu ilaahay hadda ay dareemayso waxba aysan dareemeyn oo ay fiican tahay laakiin waxay sheegtay in ay dhici karto xaaladeedu inay isbedesho warbixintan iyo sawirada lamaanahaasina boga BBC ayna ku leenahay ayaad dhegeystayaashu ka heli karaan ama akhristayaashu si ay xog dheeraad u helaan dadkaasi marka caanka ayaa jiray maantana goor sii horeysay waxa la xaqiijiyay ciyaartoy hore oo ka tirsan kooxda Manchester United oo la yiraahdo Marwan Fellaini ayaa waxa la sheegay in uu ku dhacay cudurku wuxuuna ka ciyaarayay muddooyinka ugu dambeysay horyaalka Shiinaha oo dalka Shiinaha ayuu ku sugnaa waxaana la sheegay marka inuu fayrasku ku dhacay iyadoo uu noqday ciyaartooyga ugu horeeyay ee ka tirsan horyaalka dalkaasi Shiinaha ee cudurka uu ku dhaco marka dad badan oo runtii caan ah oo ama siyaasiyiin ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen ayaa jirtay in fayrasku uu ku dhacay saacadii ugu dambeeyay ee Bushra
وهاجاج aad ayaad u mahadsan tahay mawliid ayuu ahaa kaasi oo nooga waramayay warbixinadii ugu dambeeyay caabuqa corona sidoo kale Talyaaniga ayaa guud ahaan dalkaasi ku soo rogay xayiraad guud oo ku aadan xakameynta cudurka coronavirus sida weyn u saameeyay dalkaasi shalay oo kaliya dalka Talyaaniga waxa cudurka ugu geeriyooday ku dhawaad 800 oo qof iyadoo tirada dadka cudurkaasi uu ku dhacay ee dalka Talyaaniga ay kor u dhaaftay 53,000 oo qof hadaba Shukri Saciid oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Roma ayaa goor dhaweyd xaaladda ugu dambeysay ee dalkaasi uga warantay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow xaaladda guud wadankan hadda ka jirta coronavirus-ka aad iyo aad bay waxay u tahay xasaasi sababtoo ah shalayto waxa la gaaray maqribkii markay tahay bay ayagu soo saaraan warbixinta dhan oo macluumaadka ay maalintii oo dhan aruuriyeen shalayto waxa la soo saaray in shalay kaliya ay dhimatay 793 ruux ay dhimatay waxa kale oo macluumaadkaas lagu soo saaray in shalayto cudurkaas uu ku dhacay oo qabsaday 6,557 ruux oo cusub uu soo ritay cudurka waxa kale oo la soo saaray inuu inta average lagu soo sameeyay oo dhan oo hadda markaan qabta cudurkaas ay tahay 53,578 ruux yaa cudurkaas hadda Talyaaniga uu qabaa waxa kaliya oo shalayto oo macquul ah oo niyada dadka u dhisay oo la soo saaray waxa weeyaan numberkii dadkii ka biskooday baa wuxuu ka kormaray kii dhintay shalayto waxa biskootay 943 ruux yaa ka biskootay cudurka waa gartay marka waxaa la isweydiin karaa dalka Talyaaniga wuxuu ka mid yahay dalalka ugu horumarsan ee caalamka gaar ahaan Yurub marka in dhimashadu xawligan intaan la eeg ay ku badato ama cudurka sidan xawliga ugu faafo maxaa marka lagu sababeyn karaa waxa lagu sababeyn karaa sabab hadda waa u leeyihiin waa arrin mudaweeye wadankan caafimaadkiisa sida loo socdo aad buu u sareeyaa waa wadamada EU-ga asaga iyo Jarmalka ugu sareeya adduunka dhanba dhinaca wasareenka wax la yaaban yahay cudurkan wuxuu ugu faafay waliba goboladaas Lombardia iyo Milano North-ka ah oo dhaqaaluhu ku badan yahay warshaduhu ku badan yihiin iyo si lama filaan ah ayagoon ogeyn ugu faaf marka waxa qalad baa laga fahmay sida ay sheegayaan dhaqaatiirta basic-ka oo caafimaadka oo basic family doctors-ka waxay u qaateen markii hore inay wax influenza-dan caadiga ah oo dadka ku dhacdo hargabkan uu yahay laakiin gadaal baa waxa laga fahmay inuu cudur culus oo saas u adag oo dadka oo dilaa oo ah oo yahay hadda walwalka iyo walaaca ugu weyn waxa weeye cabinetkii baaba cabsi loo qaba marka waxay soo dejiyeen shalayto sharci kale xala soo saareen oo bando wax walba wax dhaqaaqi kara magaaladii askar baa lagu daadiyay ciidankii militariga lagu daadiyay gobolka Lombardia ayaa kamid ah meelaha sida weyn oo cudurka marka uga faafay dhimashaduna marka ay ku badan tahay marka dawladdu waxay ku soo rogtay xayiraad marka xayiraadahaas lagu soo rogay maxaa kamid ah xayiraadahaas lagu soo rogay hadda wuxuu yiri premierku xalayto waxaan xasaasi ahayn awal warshaduhu waa furaayeen marka warshadahaas ula socotay shaqaalaha la yareeyay waa la kala fududeeyay dadka waa loo sheegay waxa la yiri wixii protocolkaas ilaalin waaya waa la daxweynaya bas waxa kale oo la sameeyay dadkii oo dhan baa la isugu yeeray waxa dawladdu waxay tiri dhaqaatiir oo tabarucaad ah Nooradka iyo Lombardia aadaysa hala keenay yiraahdeen 7,000 oo dhaqtar baa gobolada kale Talyaaniga shalayto isi soo diyaariyay oo Lombardia loo wado oo inay cudurkaas wax ka caabiyaan askartu waxay kale aruurinaysaa dadkii dhintay waa la gubayaa markii dadkii looma tagi karo cuduradan faafay qabaan qofka inta subaxii gurigiisa lagala baxo oo qofkaagii aad jeclayd laguma soo celinayo dib dambe uma aad arkaysid dadkii familigiisa asagoo is arag bay dhimanayaan markay dhintaanna askartaas inta loo yeeray ku ridaan kursigan oo bay tuurayaan oo la gubahay waayahay ugu dambeyn Soomaali badan ayaa ku nool Talyaaniga oo adigu waad kamid tahay marka saameyn intee la eg ayuu u geystay Soomaalida wuxuu u geystay aboowe dhibaatada wadanka dhan haysata yaan anagu kamid nahay wuxuu u geystay de qof shaqaysan kara ma jiraan Soomaalida waliba dhibaatada ka weyn oo u sii geystay waxa weeye xawaaladii naga dadka iyaga waa taqaana xawaalada qaar baa ka shaqaysta qaar baa ku shaqaysta qaar baa dadkooda u dirsada qaar baa xagga adduunka lacag uga soo dirsada xawaaladii oo dhan waa la joojiyay wax dhaqdhaqaaq oo dhaqaalaha ma jiraan marka Soomaalida dhibaatada kale oo haysata waxa weeye dad waxa jira xawaaladaas ku shaqaysan jiray xawaaladina ka xirantay marka dawladda dadka u diiwaan garsano lacagta ay siisto waxa weeyaan hadhowto iyaga waxbaan qaar u celinaynaa bay leeyihiin laakiin
soomaalidii ma garanayo cidda wax u celin doonta markii hadday shaqadoodiina joogsadeen shaqadooduna awalba shaqo dowladda talyaaniga u diiwaan gashan aysan ahayn dadkaas waxaan u malaynayaa in dhibaato weyn oo dhaqaale ay soo wajahay. taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Roma oo ugu waramaysay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Halkani waa BBC. Isla wararka corona ayaynu ku guda jirnaa dhageystayaal. Dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka qaaradda Yurub ee la daala dhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka corona. Jarmalka oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa qaar ka mid ah waxa la sheegayaa in laga helay xanuunka corona. Maxamed Cabdi Jaamac oo ah Soomaali ku nool magaalada Hamburg ee wadankaasi ayaa cudurka laga helay qadka telefoonka ayuuna ugu waramay wariyahayaga Bashiir Maxamed Caato. laba wiil oo Soomaali ila socotay maalinka Jimcadii sabtideedii kasii horeysay ahayd Jimcadii aan wada soconay baa hergab la qufay marka waxaan isla hergabkoodii baa kugu dhacay guriga iska joogay marka shakadu waan u sheegay fasax baan galay shala baa waxa la ii sheegay wiil Soomaali aan garanayo magaalada degan inuu sidaas oo kale u dareemo isbitaalka tagay kabacdina laga soo helay sidad marka ku ogaatay inaad qabto xanuunka isbitaalkii waan xala maqribkii tagay dacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafada iskaadana kusoo wacay dhaheen cudurka marka ka baarayaan waqti buu qaadanaya 24 saac jaabta in lagu siiyo marka dhacaan yar bahal yar bay suuf ku dhibiyaan dhunta iska gelinaysa waad ku celinaysaa anaa kusoo wacay wala number bay iga qorteen hadda dhow bay soo waceen marka waxay ku dhaheen positive baa tahay labadu waa inaa gurigaaga joogtaa ka bixi karto guriga xanuunkan wad ogtahay oo dalal badan oo caalamka ayaa la daala dhacaya dadkuna asas badan bay ka qaadeen marka bal waxay nooga sheegay calaamadaha isku aragtay ka hor intaan baaritaanka sameyn niyo xanuunka intaan usan igu dhicin aniga waxaan arkay maalinkii sabtida ma shaqeynayay waxaan isku arkay riiraxyo dhunta cunayso kabacdi waxaan cabayay muddo ah finjibiil iyo shaah baan iska cabayay hergab baan aaminay waxaan dareemay wareer dhigaha xanuunaya labada dhafoor oo aad iyo xanuunayo tabardaro qufac laakiin inkastoo marka aan sanjibiisha iyo maaragtay waxyaabaha kulkulul iyo isbaaskii cunaa xoogaa ka roonaanayo laakiin inta badan waxaan dareemay waxay qandha aan jirkayga ka baxayn tabardaro aniga dhan wareer baa igu jiray markasta marka waxaan dareemay waxa inaysa hergab ka weyiin because of weligay hergab 4 bari ka badan lama xanuunsan waan dareemay wax aan caadi inay yihiin sidaa darteed baana shaki igu jiray muddo 3 bilo u dambeysay waxbaa si ka khaldan caafimaadkayga marka sidaasaana keentay inaan aado dhakhtarka soo baaro qaar badan oo kamid ah dadkii uu haleelay xanuunkaasi ee caalamku waxa la sheegay naqaska uu ku dhago oo ay miir dabolmeen marka bal ka war calaamadahaasi iyo walaa wax neefa iyo wax taariikhiya saaid oo taa kala joogtay anuu mahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ee qof bas uu ku helaa laakiin aniga hadda sida waqtiga aan ku sheegay maanta maalin ka fiican ma jirto qandama dareemo waxa ma dareemayo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin dhakhtarku wuxuu igu dhahay 2 week umbaad kanantii ahaanaysaa 2 week marka waxaan ku dhahay already guriga waan joogan waxay igu tiri waxba dhimale 2 week kalena gurigaaga si joog iska naso waxa weeye biyo badan cab waxa weeye nasiinadana bani dhakhtarka ku dhahay dabcan waxa laga yaabaa in dad badan ay kugula nool yihiin halkaad ku nooshahay ama qoys ahaadaan ama saaxiibaha ahaadaan marka iyagu xaaladooda caafimaad bal ka waran niyahow aniga keligay baa degan laakiin dhalinyaro waxaa jirtay aan talaadadii aan kulanay waa u sheegay oo soo baaran ku laakiin iyagu waxay ku dhan waa fiicannahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay niyahow Soomaali badan oo magaalada joogto especially 5 iyo 6 gaarayso aan wada xiriirnay maalmaha xanuunsan aan wada xiriiray kulli inta aan wada dareemaya qof raba inuu isbaaro ma jirto marka waxaan dhihi lahaa wareed hal soo baaro qofku horta ogaado waxaan hayo ilaahay baa caafimaad hayo alxamdulillaah rabbil caalamiin qofku inuu ku qanco wax kasto ku dhaco muslim baana annaga waxaan ku fiicannahay wuxuu waa iska hergab laakiin waxaa daran qof waa yeela ama qof kale oo xanuunsan cudurrada maaragtay dilaaga qabo inaad ku darto oo nasiibo halkaas gacmaha ugu geysato marka waxaa daran inaad wixii adiga inta inkirto aad gurigaaga dhex xurido dad badan baan aqaanaa 1 iyo 2 iyo 3 midna ah oo magaalada ila jooga dhalinyaro Soomaali ah oo isna qaano kulligood wada qandan oo qufacayo oo ku dhahayo calaamadahaas laga helay adiga aad dareemaysid anagana waa dareemayna ku hay aan rabin isbitaalka inay aadaan marka waxaan oran lahaa dadku qofku markuu xanuunsado gurigiisa ha joogo hadduu aad isaga shakiyo oo qufac saa'ida iyo qandho iyo tabardarro iyo waxa dareemo fadlan maalinka saddexaad ama labaad adoo cidna la kulmin ay salaad iska dhigo kaliya guriga ku xirnaa dhakhtarka u tagisa soo baar kasoo in lagu yiri 14 cisho soo socda guriga isku karantiil ma jiraan waxyaabo kale oo daaweyn oo kalmaad oo lagu siiyay wax kale lagu qabanay ma waxay ku in lacala hadii neef aad dareento neefta inay ku dhibto ambulance tawac dhakhtarada ibaarti baa soo wacday difaaca jirkaagu aad buu u shaqeynaya waan ka dareemay bay dhahday laakiin laba guriga iska joog bay ugu tiri maxamedow xanuunkan adduunkii oo dhan buu gabagabeeyay oo cabsi ayuu dadkii oo dhan ku abuuray marka adigu markii lagu yiri waad qabtay xanuunka corona maxaa dareentay
wallahi niyo aniga markii hore shaki waa qabay oo qof weyn oo caqli leh baan ahay waxa weeye salaatu shukri baan dukaday ilaahay waxaan ku ilaahay waxaad ii qorto ku qanacsan alxamdulillahi rabbil caalamiin xaasman waalin fresh baan ahay waxaan dareemayna hadda ma jirto qof caadi aan ahay laakiin de virus baa jirkayga ku jiro coronavirus la dhaho laakiin haddana alxamdulillahi rabbil caalamiin marka waad hubtaayo coronan uu kugu dhacay welin waad nooshahay walaal anigu gurigaan joogaa waxa weeye howlahayga caadiga aan qabsanayo cunadeedaan karsanayo waa fiicana waxaan qabo male taana lugahayga ku tegay isbitaalka isha soo baaray kasoo noqday corona waxa weeye qofku ilaahay uu ku dilayo unbaa dhimanayo marka waxa weeye faidaa jaa ajalum laa yastaakhiruna saacata walaa yastaqdimu ilahay hore noogu sheegay ma horan lagaagama dhigay ugumana soo hormarinayo qof walba qadartiisu ku dhimanaya waxa weeye malaria loo dhintaa wax walba loo dhintaa laakiin coronavirus waa cudur fudud aan u aaminsanahay qofkuna waxaa muhiim ah un qofku inuusan ummad kale u gudbinin oo gurigiisa uu joogo iskana warqabo kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi jaamac oo ah Soomaali ku nool magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka oo laga helay caabuqa corona wuxuuna u waramayay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato haatan Mandera ismaamulka magaalada Mandera ayaa joojiyay qaadkii magaalada soo galiyay waxayna sheegeen tallaabadaasi ay qayb ka tahay kuwa lagu xakameynayo caabuqa corona hase yeeshee ganacsatada qaadka ee magaaladaasi ayaa cabasho ka muujiyay go'aankaasi iyagoona sheegay inay noloshoodu ku tiirsanayd ka ganacsiga qaadka waxayna sameeyeen banaanbax ee ay dowladda uga dalbanayaan in loo fasaxo jaadka qaar ka mid ah ganacsatada dibadbaxayay ayay BBC-du la hadashay magacaygu waxaa la dhahaa ruqi haajir waxaan u mudaharaadaynaa wadanka nin walba ilaahay risaqa meelaad u saaray maamooyin iyo ilmahood oo waxaan nahnay qaad ku korsato ilmaha ku korsato jaamacadaha ugula baxda iskuulaha ugula baxda secondary-ga ugula baxda qutulyoonkooda ka raadsad qaadkii oo Kenya aanan la kala xirin oo wax walba ay isu socdaan gawaaradii loorigii maxaa la dhihi jiray xamuulkii baskii nolosha dhan qaadka haddii la xiraaya sababta loo xiraaya waa wax meesha aanan laga sheegin haddii intaad noo imaado asiraa dhibkaas qaadkaa noo keenaya xal aan ka gaarna aan isu imaadna maamiyonka isu imaadeena aba caafimaadka annagaas noo dan yahay mudaharaadka aan qaadnay xal waaya waa taas calaantaas guduudan greenka aan wata waa ammaan xal ma wad ammaan wadna xal ma wadna magaalada asqaadka ka soo baxa cudurka lagama sheegin midda aad soo galaana cudur laguma sheegin waxa dib oo jira qaadka islaamka qaadka ilmaha lagu biilaa cida lagu biilaa markaan bilaxsaan qaadka noo furdha magacaydu waxa la dhahaa Carfoon Xasan Cismaan annaga oo mudaharaadayna waxaan u mudaharaadayna anaga qaadan ka shaqeynaa wax kale oo ka shaqeyna malaha wax kale oo garanayna malaha qaadkaana ilmaha ku soo korsanay jaamacadda iskuulka ugu baxnaa qaadka hadaa nagala jooji wax aan qabanayna malaha waxana ma haysano qaadkaan annaga aan qutulyoonka ayna ka raadsanayno oo ilmahayna iskuulka ugu baxayna hadaa nagala ceyri annaga nin waxna siinaa ma jirto ilaahay ma ogi cabashadayna waxa waa qaadka in nagala joojiyo ma rabna ina qaadka ayna noola fasaxa oo qaadka ayna dawladda ay noo dayso oo aan rabnaa waxaan u mudaharaadaynana dhibna qabsaday waaye mudaharaadka wuxuu ka socday annaga qaadaan iska doonanayna maamooyin aan nahay ilmaan leenahay agoon leeyahay jirta dad indhala aa jira rajaa jirta qaadaan raadsanayn inta soo saran qaadka ku nooleen 30 saran qaad gadayni qaadka waxa mudaharaadka waxa keenay ciil waan tagnay xafiiska hadaan tagnay wax ilaahay abuuro nagala hoos qaaday male maxaad rabtiin cidna dhahdi male albaab walba waa garaacnay wax naga furaan wayni ciilaan u mudaharaadnay waa sida albaab walba waa garaac wax naga furo male wax nala hadliba male maxaan ku raahdaa ilma iskuul looga bixiya dawladda waxaan ka codsanaynaa inay qaadkayna ammaan noo siiso cawada hadaan saan ku galbana dib wax shidana male ilma waa naga ba'ayeen dawladda daysaas ogoshahay hana dhamaysa mudaharaada haddana sidii naga fursan wayso bay noqonaysaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalada Mandera oo ka dibad baxayay go'aanka ay dawladda hoose uga joojisay qaadkii imaanayay magaaladaasi waa hagaag dhageystayaal haatanna ciyaarihii Premier League ayaa hakad ku sii jiri doona ilaa laga gaarayo 3 bisha Abriil sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo laga cabsi qabo in ciyaartooyda si kala qaadaan arintan ayaa timid maalmo ka hor markii xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska ay sheegeen in aan la ciyaari karin guud ahaan ciyaaraha kala duwan kadib markii lagu arkay qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo macallimiinta xanuunka corona haddii uu sidan horyaalka ku dhamaado ayaa lagu khasbanaan doonaa in si degdeg ah loo bilaabo horyaalka xiga maadaama waqtigii nasiinada hakad la geliyay ciyaarihii لاعبkii hore ee kooxda Manchester United Maureen Fellaini ayaa laga helay xanuunka coronavirus sida ay xaqiijisay kooxda reer China ee uu laacibkan ka tirsan yahay 32 jirka reer Belgium ayaa laga daaweeyay xanuunka COVID-19 waxaana muddooyinkii la soo dhaafay uu ku sugnaa Fellaini cusbitaal ku yaalo dalka Shiinaha